bismillahi raxmaan raxiim marka u horeyso waxaan halkan ka sheegayaa magacayga oo saddexan waxaa la yidhaahdaa cali maxamed aw jibriil baa la yidhahda waxaan ka mid ahaa guddigii waxaan ka mid ahaa 7 bilood 3 goor madaxweynaha ugu yimid heer degaan waxaanu ahayn 7 bilood aan u daba soconay dadkii dacwoonaya dhibaatada ka dacwoonaya baan nahay waxaana loo soo saaray hadda ka hor guddi fashilan oo isla habeenkii ay soo hoydeen baxbad meeshii ka baraabada habeennimadkii reerihii soo raray oo horreeyey baa jiray oo jamiil iyo ibraahim niman la yidhaahay wataan waxaa meeshaa ka caddaaday dacwadaas iyo dhibaatadaasi markii dhacday mar labaad dacwadii baanu soo celinay madaxweynuhu wuxuu yidhi guddi waxaan idiin saarayaa soomaaliya oon wax habsame la yidhaha ku jira waxaa meeshaa ka soo baxday marka guddi wax laga dhaadhiciyey oo ciday doonayaan ha ahaadeen annaguna na lagu siray magaca waa soomaali weyn oo waa maskaxdii soomaaliyeed layidhi oo wax loo soo dhiibay baa meeshaa maray oo yimid nimankaasi meesha waxaa nooga soo baxday 37 sano dhibaatadii ka dhacday labadaa reer ee walaalaha ee dhulkaa wada lahaa ee wada didi jiray utuntii caynka ahayd maanta inay noqotay maanta inoogu jirtaayoon amba xukuumadna ama maamulkiina amba dawladdiinahay maanta aan arsanay inay meeshaa nooga soo baxay wixii caynkaa ahaa markii naloo yeedhay ee laysoo hor fadhiistay wixii aynu nimanka ku doonaynay wixii annagu aanu tusnay ee tusay taafsiyeeda xaqiiqada ahayd lama soo hadal qaadin taa waxa weeye halkaasaa la iska dhigay wixii iyagu sheegteen baa meeshaa laga fuliyey ciddaan u aragnaana dee ninkani maaragtay madaxweyne meel ka sarreeyo la taabtaa ma jire madaxweynuhu waa nin deegaanka u dhashay oo weliba familkan ka dhashay weeyaan oo reer jarareed oo gobolka dhexbuur ka dhashay oo reer galguuleed markaan runta caddayno waxa weeyaan waxyaalaha ay ku hadlayaan iyo waxay doonayaanba inay been tahay oo khalad tahay wuu arkaa waxa weeyaan aragtidaana dee annaga waxaan u qaadanay go-aanu isagu ka dambeeya inay tahayba meeshaa waxay ka soo baxay xukunkii waxaa la yidhi dhulka reer galguuleed ba iskale waxa weeyaan iyagaana loo xukumaya ciidamahana loo dirayaa meeshii go-aankaana waa la fulinayaa ciddii kasoo hortiisadana xabad baa laga aslayaa baa layidhi waxaanu caddaynaynaa dadkii shacabka ahaa ambaanu u sheegaynaa dowladda federaalka iyo adduunweynaha iyo dadka soomaaliyeed iyo absame iyo daarood iyo soomaali dadkaa wixii lagu ilaayaa inay tahay cadaalad darre ummadda ha ogaan annagu waxaasaanu aragnaa wax kaloo meeshaa ku hadhin ma jiro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillahi raxmaan raxiim waxaa la yidhaahaa magacayga cabdillaahi aw maxamuud xuseen baa la yidhaha waxaan ahaa guddiga lasoo diray oo fariinta watay oo qola wadatay lasoo diray lanooguna sheegay guddi soomaaliyeed oo dadka u siman inuu yahay dadkii hogaaminayay ee waday baan ahay dhulka tusayay waxaanu tusnay reero degan berkado intaasoo sanadood qodnaa 20 sanadood 16 sanadood 30 sanadood reero degan oo tuulayaalahoo aan guurayn baanu tusnay waxay yidhaheen wixii aada lahaydeen iyo wixii dadkiina ahaa baanu tustay bay markii hore laguyihi waxaase jira bay yiheen waxaanu annagu iska wadano oo lana soo faray baa jira wixii lasoo faray bay fuliyeen dadkii sidaa ahaa waxay yidhaheen dhulka waxba kuma lihidin waxaanu u xukunnay reer galguuleed taasina waxay ahayd un fariintii la faray lahaa waxbaanu sidana waxaana soo faray oo watay madaxweynaha iyo intii la halmaagaysa ee lamid ahayd iyo reer galguuleed arrinkii reer galguuleed watay ee madaxweynuhu watay unbay fuliyeen kaanu annagu lahayn iyo kaanu wadanay iyo kaanu soo qaadanay iyo kaanu tusnay cagtaa lagu dhuftay waxaa layidhi waxba kama jiraan wixii wuxuu go-aan ku bixiyey caawa in uu cod bixiyo guddoomiyaha nabadgelyada inuu amar siiyo uu siiyey wuxuu yidhi dadkaa ha la soo raray ninkii diidana xabad hala dhaco halasoo xoog ha lagu soo rariyo waxaanu haddaba u sheegaynaa dawladda iyo dadweynaha soomaaliyeed iyo dawladda federaalkaba waxaan u sheegaynaa
dadkaa la laynaya ee lagu duulay in nabadgelyadooda la qabto oo dawladdu noo soo birmato oo noo soo gurmataanu weydiisanaynaa federaalka saasaanu weydiisanaynaa dadkaa lagu duulaya ee madaxnimada reer dalal guuleed helay ee inacagtar helay lanagu qabanayo lanagu laynayo in lanaga soo gaadho oo dawladduna soo gaadhaanu warsanaynaa dadka soomaaliyeed iyo absamo iyo cid walbana waxaanu ogeysiinaynaa arrintaa lanagu dilayo in laga hortago oon dadka la laynin masaakiinta ee meesha deganaa ee 30 sannadood deganaa wax dalahoonu kala leenahay iyo wax daba oo dhulahoonu kala lahayni ma jiro xoog baa lanagu muquunaya iyo xukun baan haystaa war hala naga soo gaadhaanu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim aniga waxaa la yidhaahaa axmed cali aw cismaan odayaashii sideedda ahaa ee degmada Caaso uga qayb galay dhulka iyo guddida la socodkeeda ayaan ka mid ahaa odayaashiina imanka hareertayday wada fadhiyaan arrintan haddaba aanu meesha ka sheegi waxaa weeye dhibtanna haysataa waa tu ina cagjar kow la ah ee tu ka horreysay ma aha dadku wuu kala yaalay reer ma dul oolin dadku wuu kala deganaa beeraha la kala lahaa degmada reerkaa la kala lahaa birkadaha la kala lahaa daaqsintaa la kala lahaa markii ninkani xukuumadda uu helay ayaa wuxuu xusuustay 40 sano ka soo wareegtay dagaalkii labada reer dhibtii gaadhay buu xusuustay markaa isaga iyo ninka la yidhaaho willi oo isaguna